Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fiidnimo wanaagsan khayrta wada nagala xiriirtay halkan waa barta YouTube-ka aad maalin walba nagala socotaan. Caawana waxaan kusoo qaadan doonaa madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto oo si rasmi ah xilkiisii ay ugu dhawaaqday maxkamadda sare iyadoo isjiid fara badan iyo isqabqabsi fara badan oo jiray. Dowladda Kenya ayaa maxkamadeeda sare ayaa waxay go'aamisay in William Ruto uu yahay madaxweynaha saxda ah ee 5 sano ee soo socota dalka Kenya kadib markii dood ay ka dhalatay ninka la yiraahdo Raila Odinga uu isku dayay inuu maxkamadda kiis geeyo oona codsaday ilaa 9 kiis oo ka dhan ah William Ruto, taas oo uu sheegay inay micnaha uu hayo caddeyn fara badan. Marka bishii hore ayuu gudbiyey codsigiisa, bishii markuu gudbiyeyna waxaa laga aqbalay 9kii kiis waa la baaray ilaa dukumentiyo fara badan ayuu soo dhigay. Wuxuu leeyahay dukumentiyadan ayaa caddeyn u ah in William Ruto uusan ku guuleysan madaxweynaha dalka Kenya oo anigii uu ku guuleystay. Marka taas caddeynteeda waa la baaray, maxkamaddu way u fadhisay 2 toddobaad la soo dhaafay, baaritaankiina way soo gabagabeeyeen. Wixii uu sheegayay ninka la yiraahdo Raila Odingana been ayay noqdeen, meesha ayay ka baxeen. Marka Raila Odinga waa ninkan oo markii shanaad uu saareynayo madaxtinimada dalka Kenya. Marar fara badan wuxuu dhihi jiray waa layga dhacay, tanaa layga yaalay, markasta maxkamaddu aadi jiray, kiiska ayuu furi jiray. Marka wuu ku fashilmi jiray. Marka hadda waxaa leeyahay ugu dambeyn wuu aqbalay kiiskii, arrintiin wuu aqbalay. Waxaa lagu dhahay William Ruto madaxweynaha saxda ah, codeyntana si sax ah ayuu dhacday. Marka wax murna ma iskama taagno. Ugu dambeyntii wuu aqbalay ninka la yiraahdo Raila Odinga, laakiin wuxuu dhahay siyaasadeyda iyo mustaqbalkayga iyo taageerayaasheeda waa la hadli doonaa. Marka wuxuu la hadli doonaa lama yaqaano. Waxay ku habboonaan lahayd inuu siyaasadda ka retire gareeyo sababtoo ah waa 77 sano jir, 5 jeer seereeyay micnaha xilka madaxweynaha ugu sarreeya dalka Kenya. Marka waa markii ugu dambeysay hadda sida dadka ay saadaalinayaan, sababtoo hadda waxaa leeyahay 77 sano ayuu jiraa. 5 sano haddii uu hadda sii noolaadana wuxuu noqon doonaa 82 jir. Marka 82 jir tartankiisa waa isku dhamaadaba. Marka saas ayuu ku sheegay. Hadda ka horna waa tii la sheegay oo aabihiis ayaa waxaa yiri aniga haddaan madaxtinimada aan mar walba madaxtinimada aan raadinayo haddaan waayo, asaga wuxuu ku dhahay madaxtinimo aabba ku waalatay mana helaysid. Markaas wuxuu dhahay adigana gadaashay ma heli doontid. Marka gadaashay ma heli doontid way dhawowda. Hadda dadku waxay leeyihiin ninkan waa weligiisba ma helaayaba madaxtinimada Kenya inuu rajo lagama qabo, sababtoo ah waa nin micnaha sidiisaba aan nasiib lahayn, unlucky dadka la yiraahdo ah. Marka kiiskan muddo fara badan oo soo jiitamayay, isqabsigii iyo doodiina way dhamaatay. Doorasho ka dhacda dalka Kenya, doorashooyinka intooda badan isqabqabsi iyo maxkamad iyo kiis la aado wuu jiri jiray, laakiin tantii ugu xumeed ayay ahaaday. Marka waxaa leeyahay maanta wax magaalada Nairobi wax shaqaaqa iyo wax dhibaato ah kama dhicin, laakiin wuxuu dhahay waa la hadli doonaa taageerayaasha. Maxkamadda go'aankeedana waa ogolahay. Marka aad iyo aad ayuu iskugu dayay inuu ka hortago William Ruto dhaqdhaqaaqiisa iyo dowladda qaabka u soo baxay iyo meelo fara badan inuu ka galo, laakiin waa u suuragali weysay. William Rutona hadda waxaa madaxweynaha 5 sano ee soo socota dalka Kenya. Inkastoo dadka qaar ay leeyihiin William Ruto uma fiicnayn, dadka qaarna waxay leeyihiin ninkaas waa nin waayeel ah oo hadda waxba kuma soo kordhin lahayn inuu waddanka maamulo. Waxaa marka siyaasadda Kenya halkaas ayay kusoo gabagabowday. Ninka la yiraahdo waxaa aad dadku u dhaliilayaan ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta oo daha gadaashiisa ka maamulayay Raila Odinga, kaasoo rabay in uu hantidiisa iyo ku ilaashado. Raila Odinga markuu madaxweynaha noqdo hantidiisa iyo noloshiisa inuu ku ilaashado, sababtoo ninkan Ruto way isku xumaadeen. Waxyaabo badan oo dukumentiyo iyo dhul fara badan iyo canshuuro fara badan iyo waxyaabo badan in lagu soo rogo ayuu ka baqaya. Marka waxaan waa iska siyaasad. Siyaasaddana waxaa waaye wajiyo joogto ah iyo saaxiib joogto ah ma leh, waxay leedahay dan joogto ah. Marka saas ayay ku kala tageen labadaas nin. Haddana isma arki karaan Ruto iyo Uhuru. Mar 10 sano saaxiibo ayay ahaayeen oo gacmaha ayay iska wateen, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ahaayeen. Laakiin waxaa qaladka iska lahay leeyihiin dadka ninka la yiraahdo Uhuru, kaasoo ku booday saaxiibkiis. Wuxuu yiri 10 sano isla soo qaadanay, 10 sano kadibna adigaan ku sharaxayo ku dhahay. Marka ballanqaadka hore uga baxay. Markuu ballanqaadka hore uga baxayna waxay groupkan u aaday. Aadan Barrow saaxiibkii groupkan asagana wuxuu aaday dhankan kale. Waa lagu kala baxay siyaasadda. Siyaasaddu waa sidii lagu yaqaanay. Marka hadda Aadan Barre iyo Ruto iswato ayaa halkaas ku soo baxay. Ninka la yiraahdo Raila iyo asxaabtiisa iyo waa laga tegay meelo badan, xataa loo guuleystay gobollo fara badan ayaa loo guuleystay. Azimio la Umoja groupkiisa waxaas u badan ay heleen hadda ma jiraan. Marka Garissa ayaa la sheegaya in dadka qaar ay ka heleen oo Nadiif Jaamac oo kale ay dhankaas ayuu ka socday. Marka rag qaar ka mid ah way heleen. Ninka la yiraahdo Farax Macalin oo kale xataa xaggaas ayuu ka socday Raila Odinga dhankiisa. Marka dhankaas Eastern waa laga yaabaa in wax ka heleen, laakiin meelo kale oo fara badan ay heleen ma jiraan. Marka siyaasaddu waa saas. Kenya 5 sano ee soo socota warkiisana waa soo gabagaboobay, dood fara badanna kama taagno.
insha Allah marka haddii aan taas ka gudubno wixii barnaamijkaas kusoo kordhay maxkamadaas iyo kiiskaas insha Allah dib ayaan kasoo qaadan doonaa. Waxaan u gudbaynaa dhankaas iyo Soomaaliya. Soomaaliya waxaa ka taagneed dagaal u dhexeeyay ururka Al-Shabaab iyo qabaa'ilada Soomaaliyeed, taasoo dad fara badan ay shacab ay ku laayeen muddo dhowr beriyo ka hor. Ilaa 18 qofood oo hal qabiil u dhashay inay ururka Al-Shabaab ay laayeen. Marka waxaa aad u xanaaqay qabiilkii ay ka dhasheen dadkaasi, oo waxay dhaheen waa dad beegsi, dad maati ah iyo la beegsado la dhameeyey, taasna wax dulqaada uma samayn karno. Marka maanta mar labaad ay isdagaaleen oo dadkii qabiilkaas laga laayay dadka iyo waxaa isdagaalay ururka Al-Shabaab haddana waxay iska dileen haddana maanta 13 qof deegaanka Maxaas oo ishaga asagana halkaas ay weerar isku qaadeen. Marka dagaalkooda 13 qof labada dhinac ayaa dhimatay leeyahay, weli fara kama qodno. Marka shabaab iyo waxaa leeyahay qabaa'ilada Soomaaliyeed hadda si gooni ah isku beegsanayaan, sababtoo meesha haddii qabiil imaado xaaladdu way adkaanaysaa. Nimankan laakiin ayagu qabiil ma laha, waa dad isku jiro oo Soomaali iyo wax walba iyo ajaanib leh, oo hadda lama dhihi karo qabiil ayay sheeg waa ka koobnaadaan qabiilo kala duwan, laakiin qabiil toos oo loogu hagaagayo ma jiro. Marka way isfara saareen, meesha dagaal ayaa ka dhacay Maxaas. Haddana waxaa leeyahay hub urursi iyo meelo badan ayaa jiro. Ciidamada dowladda ayagana waxay weerar ku qaadeen Buulburta meel u dhow oo tuulo u dhow oo shabaab canshuur ku qaadi jireen, ayagana bar control ku lahaayeen weerar ku qaadeen, halkaas ayayna ka qabsadeen ayagana. Marka hadda shabaab waxaa malaysaa dhaqaaq fara badan in lagu sameynayo ayaga naftikooda, dhanka dowladda iyo dhanka qabaa'ilada iyo macawisleyda iyo inay aad ugu kaceen, oo hadda xaaladdu ay bariga dhexe ay tahay. Mar haddii qabaa'ilada iyo macawisleyda kugu kacaan xaaladdu ma fiicno, dagaalku iska joogto noqonaa. Marka waxaa kaloo arkaynaa ayadana Cadaadi iyo dhankaas iyo baxdo iyo tuulooyin kale hoos tago deegaanada Galguduud sida Dhuusamareeb hoos tago ayaa waxaa isku diyaariyay dad fara badan oo shacab ah, laakiin qaab qabiil u abaabulan. Marka waxay leeyihiin anaga mar walba waa inaan si qabiil ahaan isaga dhicinaa, deegaan walba anaga aan xukunana qabiil ahaan kula dagaalamayna. Marka halkaasna dagaalo fara badan ayaa laga soo sheegaya gobolka Hiiraan aad xaaladdu ugu xun tahay, iyo gobolada Galguduud ayadana meelo badan ayaa laga soo sheegayaa oo mar walba ay ka dhacdaa. Marka dadku cabsi ayay muujinayaan oo mar walba dagaal in loo joogo waa wax wanaagsan ma aha. Dagaal aan dhammaanaynin oo Soomaaliya ka jiro, dhanka shabaab hadday noqon lahayd, dhanka dowladda Soomaaliya hadday noqon lahayd, meelaha dadka deegaanada iyo qabaa'ilada hadday noqon lahayd, Soomaaliya waxaa leeyahay dagaal ma hortaba, sababtoo ah hal bil ama 2 bil oo dagaal la-aan ma jirtaba, sababtoo mar walba isbuuc walba iyo maalin walba waxaa la isku haystaa siyaasad gooni ah, ama shabaab iyo waxaa haysta macawisley, ama shabaab iyo waxaa haysta qabiil, ama waxaa haysta shabaab iyo dowladda wax una haysta AMISOM iyo qolo kale haysta dowladda dhexdeeda haysta marmarka qaar. Marka Soomaaliya xabad u joog ayay noqotay. Ilaahay waddanka ha badbaadiyo, dagaalada iyo dhibaatada iyo fidnada ha la iska daayo. Adduunkan asagaa iska qariib ah oo dad fara badan ayaa la arkay, xaalado fara badan oo wixii la sheegay ah aqrisamaanka ayaa la arkay. Marka Ilaahay ummadda ha badbaadiyo, anagana Ilaahay hana badbaadiyo. Dad qof walba bini aadan waxaa fiican inuu sharaf iyo karaamo ku noolaado intii Ilaahay ugu talagalay, laakiin qof walba meesha lagu talagalo oo baxaa. Marka dagaalada iyo dhibaatada iyo colaadaha iyo dadka masaakiinta la leenahay laga waantoobo. Khayr oo ku mahadsantihiin la socodkeena barnaamijkeenan. Waxaan ka codsanayaa inay YouTube-keena subscribe iyo like share nala wadaagtaan. Tani kulanteeda dambe waxay waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.